waxaan u mahad celinayaa wasiirka wasaaradda waxbarashada, wasiir dowlaha, wasiir ku-xigeenka dhammaan howlwadeenada wasaaradda waxbarashada. Waxaan u mahad celinayaa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho. Waxaan u mahad celinayaa ciidamada amniga qaranka Soomaaliyeed. Waxaan joognaa saaka iskuulka 15 May oo ah iskuul magaalada Muqdisho gaar ahaan dalka Soomaaliya caan ku ah oo la yaqaano. halkaas oo aan ku daahfurnay imtixaankii sanad dugsiyeedka oo ay u fadhiyaan maanta arday ku dhow 28,000 wadanka badankiis intaas in ka badanna maalmo ka hor ay galeen. waxay ka turjumaysaa in sanadkan uu yahay sanadkii ugu badnaa ee arday Soomaaliyeed ay imtixaan u fariisato horumarka uu wadanku ku tallaabsanayo. waxbarashadu sideedaba waa qayb ka mid ah ama qaybta ugu muhiimsan horumarka wadanka in wax la barto waa dib u dhiska qaranka astaamaheeda ama udubdhaxaadkeeda. imtixaankan loo fadhiyo marka waxaan marka ugu horeysa Ilaahay uga baryayaa ardayda u fadhideen inay u fududeeyo. waxaan aad ugu mahad celinayaa aabbayaashii iyo hooyadii hooyooyinkii ka soo shaqeeyay inay caruurtooda soo gaarsiiyaan halkan. annaguna ka dawlad ahaan insha Allah waxaan ku dadaali doonaa si arday walba uu mustaqbalka fursad u heli lahaa. hawshan iyada ah marka waxaan uga mahad celinayaa cid walba oo ka soo shaqeysay. waa iftiin qarannimo ay ka muuqato Soomaaliyeed, waa horumar uu wadankeenu ku tallaabsanayo, waxayna ahaan doontaa waxyaabaha saldhig waa xukuumaddu inay ka shaqeyso. waan idin mahad celinayaa, waa mahadsantiin.